gobonimada iyada garwaaqsada xornimo inaan gaaro go'ay geygii kastee guushayada jecel abaal guunaxban gaar ugu hayaa magacay waxa weeye Cali Xaashi Xasan inankana wuxuu qabaa cabasho aad iyo aad u weyn ma dawladda ka qabtaa mise dadka horta dawladda ka qabtaa lagu socdiyo meelsinaan daboos waxa lagu dhaqmaa waa Soomaaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ku soo dhaw YouTube channelkayga qaasi waxaan duubi doonaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan muuqaalkaas aan ka soo sameyn doono sida looga diyaar garoobayo 18 Mayda suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ku soo dhaw muuqaal aad iyo aad u qurux badan halkan aan ka dhaqaaqi doono waa xaafadda Jigjigeer muuqaalka daawasho wacan wanaagsan oo ku leeyahay isla socod wanaagsan ku soo dhaw YouTube channelkayga عبدالرشيد محمد كقبطان نو horta 18 waa maalin lagu qaadin karaasa sida dadka caadi ah u jabadina صح wadii wali uga professional صح marka hadii tasmaantii waduunka shaxday xasmaartay mid dunida kala dheeraay ما شاء الله marka awal ku maalna marka duubayno ayaan rabaa inaad information fiican dadka ka siiso marka hore saanta ma nagu celiyo dadka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada oo saanay qaasi waa channelkii channelada garaasa idinkoo caadi ah anagu caadi ah marka maanta waxaan qabanaa insha Allah fiidiyowgii adduunka ama deynta yareen daawano ugu quruxda badan marka waxaan doobanaa sidii Hargeysa si suuqeeda looga diyaar garoobayo iyo shaxda ay dheertay caasimadaha kale halkan aan xoojino sida magaalada Hargeysa looga diyaar garoobayo 18 Mayda marka insha Allah dhinacyo badan baynu fiidiyow ka eegi doonaa annagoo dadyo badan wareysan doona fikirkooga annagoo xataa dadka qaar ku xijin doona nooba heesaan beesii Soomaaliya ما شاء الله Somaliland biladuna tuhibbuha na'shaquha bil arwahi naftiha حتى عربي ما شاء الله عربي أركيسان يوتيوب كوال أفضل تعاو عبد الرشيد بو أفضل بيه أنا أحرب هذا هيسو 18 Mayda وصوماليا ناديكو تورتو wadamada gartay gobonimada iyada garwaaqsada xornimo inaan gaaro go'ay geygii kastee guushayada jecel abaal guunaxban gaar ugu hayaa abaal guunaxban gaar ugu hayaa marka caaw muuqaalka saad aragtaan muuqaalka haasir ما يمرنا بقاله صح وياك واحد احتال بين كدغنا مردنا حبيسان kugu tuuray hadii la yiraahdo muuqaalka halkan ma ka bilaabi doonaa imka waxaan joognaa bartamaha suuqa marka halkan joogna deer mool baa la yiraahdaa reerkii soo dhaway wada yaqaaniin soo meeshan garay inta jeerad sawir ku gashay halkan oo ay dadka hore sawir bay ku gali jireen marka waxa la muuqaal aad iyo aad qurux badan duubi doonaa daawasho wacan iyo isla socod wanaagsan Cabdilrashiid maxaad ku daraysaa hadalka waxay hadal yar hawl badan
iminka waxaan dhex joognaa suuqii halkan aad arkaysaan iga dambaysaa waa MSG Group amba soo gasho sida reer Hargeysa hadba u yaqaaniin fooqan aad arkaysaan dhammaantii waxa lagu daahay calankii Jamhuuriyadda Soomaaliland calankan waa calan aad iyo aad u qurux badan fooqa la saaray waad arkaysaan 18 May diyaar garowgeeda waxa soo dhaqaalaha baa la gelinayaa fooqan aad arkaysaan aad iyo aad buu qurux badan yahay loo diyaariyay qaawasho wacan muuqaalka wax kale oo caawa la yiraahdaa ma jirto imika waxaan ku sii dhaadhacaynaa suuqa bartamiisa sii galeynaa bal bulshada kala duwan ee 18 May diyaar garowga ayaan waraysan doonaa dadka calaamada iibsanaya iyo kuwa iibinayaba labadaba waa soo duubi doonaa qaawasho wacan السلام عليكم أبدي سلامنا إبي واحد شغلنا برتمها السوق مجال هرجيسة واحد لا شو قام كم إذا نمضي على مانتا هيا هرجيسة كل حيبين يا والله صاروا ساحل ما قاعد يشق ما قاعد يروح على حاشة هنا كانوا يروحوا قبع على شاهد يا دوين بالدولة في قبطان سدت كورتا دولة كقبطان كل واحد على شاهد ردت كل شيء على شاهد واحد وين على باب بلا شيء دولة السوديس صح يا دولة واحد لا على باب بلا شيء كده يحاول كعشنا حوارون وادي قارك يبركوا يرقبوا يا حولي ويقول بلا بدو ولا يجيب سلاي يا وقبات عبشيدو والله الواحد ويدين له هالسؤال waxaan la sheegay leeyahay calaamaantu waa weynaa doorkan aad u jaban yihiin saameyntooda maxaa keenay saameyntooda waxa keenay dawladii baa calaamad bilaashada keentay marka waxa jabay dameeradii dadkii keeni jiray marka hore soo daabici jiray dad jira u dalbay jiray oo iibsan jiray dadkii markii loo gali waayay ayay jibiyeen saawgeed calaamad u jabay markii dawladda calaamaantii ay bixisay صح si guud maxaad ugu hambalyeynaysaa bulshada reer Soomaaliland 18 May xusaysan bulshada reer Soomaaliland 18 May xusaysan sanadka koobka horta waxa siin lahaa weeyadu shidal ardayda ما شاء الله ما شاء الله كوبك قادمه والله ورنتي اسكولada aad iyo doomaasata magacaaga sheeg waa magacay waa Cali Xaashi Xasan saaxib libaax Cali Xaashi Xasan aad ku salaamayna saaxib ninka la soo booqdo meheradiisu diyaaradda hoosteeda aad buu salaamayna ay saaxib wanaga qaadsan ay aad ku salaamayna inta waxay la joogaa mid kamid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciidankii militariga oo isaguna dadka kamid ah shucuurtooda u soo baxaynay soo bandhigaan suuqa weyn Hargeysa jooga ku soo dhaw walaal aad iyo aad walaal waa maalin farxadeeda leh ma sha Allah waa maalin ciideed oo ciidanka qaranka waliba annaga gaar ahaan ay noo taabanaysaa marka wallahi farxadda iyo dareenkayga lama soo koobi karo ma sha Allah horta ka hor intaanan weydiin wax su'aal weydiin ninka kamid ah ciidanka qaranka marka koowaad aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa serviceka wanaagsan ee noo haysaan oo ku faraxsanahay difaaca qaranka idinku noogu jirtaan inta idinku noo jirtaan baan anaguna wax nahay marka koowaad waa idinka mahad celinaynaa marka labaad waxaan ku weydiin lahaa magacaada horta ii sheeg magacayga Axmed walaal marka labaad waxaan ku weydiin lahaa ka waran bal 18 Maydan iyo 18 Mayadii hore wallahi 18 May ba midba ka dambayso ay ka sii tareen kruusha ma sha Allah ay 18 Maydan maxay kaga duwan tahay 18 Mayadii hore والله ده مقالة وطن كم مقتدر رسوا على كان تذكر كدريميسا ما شاء الله مركا وكون شعب كيو سيد بلدي أيات كدريميسا أديكنا إن شاء الله وحنا ما صوب بندقي دونتنا إن شاء الله هدي لهاي راه أديات بندقي سلام النبي وحده شغلنا إنا كان أو يبيع على مانتها ولا مقعد يشك مقعد مختار في سلالة ملقا مختار والله الواحد يشك تا على مانته واحد الشيء سنة كينا آدو تشبيهين شكلها محبة كتير مسوا سكدة عيد سوق كتيرتا وي كتير أنا دولة وقتي هراء على سوق اللي سمع على ده مركز ساوي قد بوتشوا واي دولة هراء على كم يسودين شرين مركز دولة علم بلاش سوق اللي علم بلاش سوق اللي سيد الشيء واحد اللي وسار ده قارة يا علمان بلاش بحنيه مركز أرنج واحد اللي علامات السوق شبان كورن كواليتي علامات كورن ولا كواليتي علامات دون زوده كواليتي علامات aad buu kala duwan waliba uu ka soo qaato dibaduu ku soo dejiyo
se waxa ugu quality wanaagsan shirkadda sagal jadku way soo saartay yani shirkado kala badan oo xagga hoose ay leeyihiin dadku waa Hindiya iyo tayo ma laha way jiraan waxaas qaar tolmay way jiraan sax calanka ugu qaalisan imsu maraya kawaawin oo kala wax maraya imika kiisa ugu jaban $7 $6 kala weynayo kuwa ka qaaliga ina kuwa ka ugu qaalisan waa way waxa jibiyay shirkadahan keenay iyo dawladda calanka sii deysay iyo calan maanta suuqa lagu sii daayay bilaashka inankan waa inan kamid ah madax calamaanta iibiyo wala magacaaga sheeg magacaaga Muxtaar Faysal baa Muxtaar Faysal aad iyo aad buu maasan tahay waan kaaga mahad celinayna waraysiga fiican aad nasiisay oo ku soo dhaweynaa saaxiibka dhalinyarada YouTuber oo ku soo dhaweynaa saaxiibka hore u socota jecel YouTube channel-keena qaasi baa la yiraahdaa way barashoonaysa maanta halka waxa ka qaadna doona xabad yar oo sabagara sayo qac ku siinaa sida caadiga ah marka waxa oranaysaa wadamada gaartay gobanimada iyada garwaaqsada xornimo ina gaaro go'ay geeygi kaste guushayada jecel abaal kun xaban kaarugu haya abaal kun xaban abaal kun xaban kaarugu haya meedku ka hasiro guushada jecel kunta hoosayo midkan kala socda karabiyo xigaal gacalaygu galo mid xiskuurayo gacal weyn yahay gacal weyn yahay kala gaaray dadkani ka gargaarayo inkii goynayo cadowna kabada gubay xaasidkee koohiye ilmada maxaad igaga goyn ugalbade kaniye cawri ninka yar ay la joogaa mid kamid ah muwaadiniinta Hargeysa caaw maxaa soo baxday saacadahan soo baxay qaranka Soomaaliland inaan ka hadlo on suuqa imaado on duriyada wax la qaybsado reer Soomaaliland ma sha Allah oo marka macalin bad iibsanaysay adigan garankii koofiyadiiba xidhan soo iibinaysay wallahi imika just now baan soo iibsaday waxa laga siiyay 65 yaa laga siiyay 65 kuna laana ha koofiyadana waxa laga siiyay $2 $2 marka qiimaha wax isku noqonaysa 85 kuna laana idinka isku labisan yahay ma sha Allah sida arkaysaan buu labisan yahay aad iyo aad walaal ma hadsan tahay magacaaga sheeg wala waxa la dhaaf shir nimcaan ma sha Allah ku soo dhaw YouTube channel-kayga qaasi ay adiguna soo dhaw inankan waa mid kamid ah isna dhalinyarada suuqa u timid calanka iibsadaan magacaaga walaal ii sheeg magacayga Ismaaciil Maxamed Roble ma sha Allah ku soo dhaw YouTube channel-kayga caaw maxaad la wadaagaysaa bulshada Soomaaliland ay ku daawanaysaa waan ku soo dhaw walaal waxaan leeyahay dareenkina muujin dibadda loo soo baxo ma sha Allah maanta horta aragtaan inaan ku labisana calankii Soomaaliland dareenkiisa saan u muujiyo aan dadkayga dalkayga soo dhaxgalay marka waxaan leeyahay hala dabaaldego habi ay dhimay ما شاء الله ما شاء الله aad iyo ma santahay wakaaga mahad celinayna ka waran dareenka bulshada iyo dadku siday isugu dhex jiraan wallahi xamaasadu xoog bay ka xasantahay ma sha Allah ay dhimeeyay kale ka duwantay xamaasadeeda calankaagu aan kula yarqabtay mid bilaash ah mise waa diibsatay ma iyo siibsado wallahi wax bilaash ma jiraan calan laga siiyay waxa laga siiyay $6 $6 baa laga siiyay $6 ma sha Allah aad buu ma santahay walaalle wakaaga mahad celinayna daawasho camal leh muuqaalku wali ma dhawa horaan imika waxaan la joognaa mid kamid ah dhalinyarada 18 May xusaysa kuwaasoo ku labisan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland walaal waxaad ii sheegtaa bal caaw ka waran 18 May iyo xuskeeda walaal 18 May aad baan ugu faraxsanahay waan ku dhawaay barnaamijka sax maxaad caaw kaga qayb qaadanaysaa fiidiyogeega hal hees baan kaga qayb qaadanaya 18 May haye bal inoo yar qaadiyo ودرارتي لا تاجي لا دبي calankeeni dhalankeenu nabad ku seexdeen wanaagadiisa wixii dhacayaba dhankiisa haya wadaniga dhabta allow dhowr Somaliland allow dhowr ما شاء الله aad iyo aad ugu mahadsantahay codkana Allah ku barakeeyo ayo walaad ugu mahadsantahay muuqaalkii quruxda badnaa ee aan ka soo bilownay xaafadda Jigjiga magaalada Hargeysa halkan buu inoogu eegayay halka iga dambaysa arkaysan waa khayriyadii iyada loo diyaariyay 18 May laguna sawiray taariikhda Soomaaliland oo dhan sidoo kale sawiradii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dhagdhagan halkan aad arkaysan waa khayriyada magaalada Hargeysa inkastoo si weyn wali loogu soo banaan bixin oo ilaa 10 May markay gaadho dadku aad u soo wada bixi doonaan maantana ay ahayd maalin Jimco ah aad iyo aad baan idin salaamayna muuqaalkeeni dheera halkan ayaan ku xiri doonaa muuqaalada quruxda badan oo soo daawanayseen ayaan ka duubnay magaalada Hargeysa ku soo dhaw YouTube channel-kayga subscribe saar waxaan leenahay muuqaalada xiga ayaa inoo balana daawasho wacan oo wanaagsan